munaasabadan lagu shaacinayay furitaanka duulimaadada cusub ee markii ugu horeysay ay Somaliland ka bilowday Flydubia ayaa si fiican loogu soo dhaweeyay gagada diyaaradaha ee Caalami International Airport ee magaalada Hargeysa taasoo markii ay si rasmi ah u soo cagadhaytay gagada diyaaradaha ee Caalami ay si diiran halkaasi ugu soo dhaweeyeen madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland ahna ku simay madaxweynaha Somaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici way weheliyeen xubno ka tirsan golaha wasiirada gaar ahaan wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada ee Somaliland waxaana diyaaradaasi la socday maamulaha guud ee Flydubia oo fadhigiisu yahay magaalada Dubai markii si diiran loo soo dhaweeyay madaxdaasi waxaa munaasabad ballaaran loogu qabtay garoonka diyaaradaha ee Caalami International Airport ee magaalada Hargeysa gudihiisa taasoo munaasabadaasi loogu dabaaldegay furitaankooda ay diyaaradoodu ka duuli doonaan garoomada Somaliland xafladaasi waxa ugu horeyn ka hadlay maamulaha guud ee Flydubia kaasoo sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in Somaliland ay ka bilaabaan duulimaadadii ugu horeeyay isla markaana waxa uu si diiran u soo dhaweeyay shaqadaasi cusub ee diyaaradoodu ay bilaabeen maarayaha guud waxa uu tilmaamay in garoomada diyaaradaha ee Somaliland ay yihiin qaar u qalma in diyaaradaha caalamiga ay yimaadaan maadaama ay buuxisay weli shuruudihii looga baahnaa garoomada caalamiga ee diyaaradaha waxaanu farta ku fiiqay shuruudahaasi dhinaca amniga waxaanu hambali u diray shacabka Somaliland iyo waliba dawladooda at the highest level of safety and security and standard of airports. I want to congratulate the people of Somaliland for a progressive and hard-working government, especially in the civil aviation, which we were exposed to. They did a wonderful job. Marwa Adnaadan Ismaaciil ayaa iyaduna si qoto dheer uga warantay sooyaalka taariikheed ee Somaliland iyo waliba maraaxilkii kala duwanaa ee loo soo maray horumarka ay Somaliland maanta samaysay. Mudane Maxamuud Xaashi Cabdi wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada ee Somaliland oo halkaasi ka hadlay ayaa isna dhankiisa soo dhaweeyay in markii ugu horeysay Flydubia ay si rasmi ah Somaliland uga bilowday duulimaadada diyaaradaha waxaanu sheegay inay ku qanacsan yihiin. And it's great pleasure for us as a nation and as a country and to welcome Flydubia aircraft, its first flight and its inauguration ceremony here today to Caalami International Airport. mudane Maxamuud Xaashi Cabdi wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada ee Somaliland waxa uu xasuusiyay madaxdaasi diyaaradaha ee Flydubia in Somaliland ay tahay qaran madax bannaan oo ka go'ay Soomaaliya intiisa kale isla markaana ay dawlad ahaan soo dhaweynayaan markasta shaqada fiican ee ka bilaabeen garoomada diyaaradaha ee Somaliland waxaanu sharaxaad ka bixiyay sida wasaaradda duulista iyo hawada ee Somaliland ay geed gaaban iyo geed dheerba ay ugu gurtay sida garoomada diyaaradaha ee Somaliland ay noqon lahaayeen qaar caalamiya and it's our responsibility and our mandate as a Ministry of Civil Aviation to do that on behalf of this nation. Finally, we are very pleased and glad for your arrival to start our country, your business and your flights. madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici oo isna halkaasi gabagabadii ka hadlay ayaa rajo fiican ka muujiyay Flydubia duulimaadada kala duwan ee ka bilowday Somaliland. waxaa maanta farxad weyn noo ah inaynu halkan u joogno daahfurkii ama bilowgii diyaaradda la Flydubia oo diyaarad caalami ah inay maanta dalkeeni caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland Caalami International Airport ka soo degtay ayna bilow wanaagsan u tahay inay ka bilowdo halkani falaaydo wax badan ka tari doona runtii isku xidhnaanshaheena ama soo celinteena xiriirkeena qadiimiga ah ee ka dhaxeeyay Somaliland iyo Imaaraadka runtii waxay soo jiidaysaa ama inoo abuuraysaa fursado badan ama in dad badan oo ganacsi ah ama dad badan oo dalxiisayaal ah inay dalka yimaadaan adeegyada wanaagsan waxay soo jiidaan dadka maalgashanaya dalka dalxiisaya waxa markaa la inooga baahan yahay guud ahaan dadka reer Somaliland nahay
inaan cid kasta oo maartay dalkani waxay noo imanaysaa aynu gacmo furan ku soo dhaweyno. waa markii ugu horeysay ee diyaarad caalamiya oo laga leeyahay dalka isu tagga Imaaraadka Carabtu ay si rasmi ah u soo cagadhigato gagada diyaaradaha ee Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa. Axmed Saki Daayir Xasan iyo Cabdilaahi Cali Suudi garoonka diyaaradaha ee Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa.